بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين waxaan jeclahay halkan inaan fikirkayga soo gudbiyo in Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inay noqoto meel nabad ah barwaaqo ah oo mustaqbalka lagu noolaado si sharaf iyo ciise ku jirto waxaan isleeyahay hogaamiyaha kaliya oo xagga diinta iyo xagga maadiga ka dhisan waan isleeyahay number 1 waaye ama isleeyahay waa ninka koowaad dad Soomaaliyeed badan xagga diinta iyo maadiga ka dhisan way jiraan wax kale ah laakiin hogaamiyaha maanta u taagan xilka madaxweynenimo doonayo ummadda Soomaaliyeed inuu samata bixiyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaan waxaan jeclaan lahaa sanadkan doorashada nagu soo aadan in uu hogaanka dowladda loo dhiibay si ummadda Soomaaliyeed horumar mid diineed iyo mid maaragtay nabadeedba ay u gaarto oo halka ku hogaamiyo ummadda Soomaaliyeed dhamaantiin waxaan ka codsanayaa ila taageer ama aan wada taageerno hogaamiyahaas si aan uga baxno dowlad xumada iyo hogaamin xunka ummadda Soomaaliyeed ku dhacday oo maanta meesha cariiriga geliday